السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto bacda salaan. Waxaan ka hadlayaa maxay ahayd qulquladaha yaryar oo ka dhacay magaalada Badhan. Waxaan leeyahay maxay ahayd hal la joojiyo dagaalka iyo mashaakilka. Dadka ayaan carruur laga leeyahay. Nimankiina le Puntland baan ka nimid. Puntland ma dagaal ba ka keentaan wax kale lagama keeno. maamulada ma ka timaadaan wax soo laayin baad ku yiraahdaa dadku hadday maamulo shaqeeyaan horumar bay waxan bay ka keenaan horumarka ka socda maamulada laakiin idinka waxa muuqata in dagaal ka keentaan ummadda Ilaahay meesha amaan bay ku deganeed warsan gali caan wax ku yahay nabadgelyo iyo amaan nabadgelyo ku yihiin maxay ahayd caan iyo nabad jacayl dadka mashaakil iyo dagaal ma baahna horumar bay u baahan yihiin maxay ahayd waddanka wax horumar ma leh maamulada ka timaadaan wax ka keentaan dagaal ceel la qoday ma leh iskuul la dhisay ma leh jaamacado maamul la dhisay ma jirto maxay ahayd laamigi wadada la bilaabay 10 sano ka hor waa taa dhexda taagan weli marka maamulka aan hebel baan nahay Puntland baan nahay kana nahay leeyihiin maxaa faa'iido ka keentaan magacna kuma leeyihiin magaciina maxay ahayd ma rabaan qiimana lama leeyihiin magac yeelataanna ma rabaan wax horumar kama keentaan waxa ka keentaan wax weeyaan waddanka qalaaleysa gelisan gobolada degtaan oo markaa timaadaan wax badan ka dhacdo isku xishiyada waan la fiin xishooda dhaqaalihiina waxa gelisan maxay ahayd boosaaso tikadiina hadda dhisan lahaydeen cidna ma baahateen dhaqaalihiina wuxuu tagaa boosaaso waxa la waxa u baahantiin wax ka soo degada boosaaso marka faa'iido yahay ku qabo laakiin waxa muuqata faa'iidadeeda ku qabo idinku magac xumo iyo ceeb ma jiraan wax magac ah aad ku leedihiin ama maxay ahayd faa'iido ku qabtaan ma jirto idinku marka waxa leeyahay ummadda islaamiyada dhulkaas ammaan iskaga joogtaa maxay ahayd Ilaahay hoos joogan cid wax u keentay cid horumarisa iyo cid wax soo midna ma jirto haddaad maxay ahayd wax qabanaysaa wax taraysaan oday isu tago intaad maxay ahayd tashataan dekada dhista wadooyin samaysta dekadiina samaytaan maxay ahayd ceergaawo iyo dhulkaas hadda go'aan ka imanaysa laga raranayo hadda dekada dhistan dhaqaale cidna ma baahatay cid oo baahantii ma jirto marka Puntland baan nahay baan nahay waxaas Puntland ma tirin noqon maysan magaciina ma rabaan wadi bahdilayaan waddanka arkay wax dhaca ka waxa leeyahay dadka dagaal soo rareena ka fariisto dib isku noqdo. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.